waxaan joognaa carwadii saddexaad ee buugaagta Muqdisho runtii waa bandhig aad iyo aad u qiimo badan oo lagu soo bandhigay buugaag iyo dhigaal aad iyo aad u kala duwan oo dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda dalkaba jooga kayd ay qoreen oo ay uga tagayaan ummadaha inteeda dambe ummadda Soomaaliyeed waxa ay ku tusaysaa in ay tahay ummad wadaagta dhaqanka iyo dhigaalka iyo taariikhdaba waxa la isaga kala yimid daafaha Soomaaliya oo dhan ilaa iyo Boorame ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo Boosaaso ayay ka yimaadeen qaybgalayaashu waxa ay ka yimaadeen sidoo kale dalka dibaddiisa ayay ka yimaadeen taas waxay ku tusaysaa xiriir Soomaalida isku xiraya oo aan kala go'ayn inuu jiro xiriirkaas oo Soomaalidu inay dhaqanka iyo dhigaalka wadaagto runtii wax walba oo ay Soomaalidu u baahnayd ayaa halkan lagu soo bandhigay suugaantii baa lagu soo bandhigay hogaamintii baa lagu soo bandhigay maamulka wanaagsan ayaa lagu soo bandhigayaa arrimaha qoyska ayaa lagu soo bandhigayaa dhaqaalaha ayaa lagu soo bandhigayaa siyaasadda ayaa lagu soo bandhigayaa waxa qofkii ka faa'iideysta wuxuu noqonayaa qof dadka ka sareeya qofkii bandhigan ka soo qayb gala ee ka faa'iideysta dhigaalkaas faraha badan ee la qoray ee qaata ee akhrista wuxuu noqonayaa qof garaadkiisu kobcay oo garashadiisu ay dheeraatay meel fogna wax ka arkaya waxay ku tusaysaa nabadda iyo isdhexgalka iyo wada noolaanshaha dhaqankii Soomaaliyeed uu ku dhisnaa